الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد waxaanu si kooban xisbi ahaan uga hadlaynaa colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Ceelaf Weyn ugu horeyn waxaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu dadka walaalaha ah kala qaboojiyo dhibta dhexdooda taalana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si fudud uu ku xalliyo waxaanu markii xigta ugu baaqaynaa deegaanka Ceelaf Weyn dadka degan inay nadamqayso dhiigooda dhaylka ku qubanaya inay nadamqayso hooyada umusha ah ee barta ku uman arooraysa inay nadamqayso aabaha waayeelka ah ee qaraxa iyo qasharka dhacaya meel uu ka galaa inay nadamqayso maatida barta ku balanbalaysa waxaanu leenahay hilbo wada dhashay iyo hayb quraati xidid iyo xigaal baati dad isku deegaana isku dada isku diina baati inan iyo abtigi baati waana iyo wanaag hore iyo dambaysaba leedinku dhameey kow ilaahina ka boqa dhiigina xalaashanaysaan ilaahina uga boqa hantidiina aad burburinaysaan ilaahay uga boqa dadkiina aad baabiinaysaan ilaahay uga boqa maalinka qiyaamaha ilaahay la hortaagan yahay dib u xasuusta nafihiina cabsida ilaahay ku wacyi geliya wax la qubana dhiig islaamba qiyaamaha ugu culus taa ka waantooba qodobka labaad ummadda Soomaaliland oo dhan dhibaatada Ceelaf Weyn ka dhacday way ka dheregsan tahay doorka culimada Soomaaliland ku lahayd waanu ku ammaanaynaa culimada Soomaaliland ka xisbi ahaan doorkay qaateen ay bartaas diifta iyo daranyada muddada dheer u joogeen deegaanka si ay u islaaxiyaan ummadda si ay u badbaadiyaan dhiigooda si ay u badbaadiyaan dhaqaalahooda si ay u badbaadiyaan walaaltinimadooda culimadu doorkeedu way qaadatay abwaanadu way ku mahadsan yihiin aqoon-yahanka kale hore iyo gadaalba ka gurmadana way ku mahadsan yihiin su'aasha isweydiinta leh waxa weeyaan mushkiladan maxaa soo celcelinaya mushkiladda tani maxaa soo celcelinaya mushkiladan sababta ku soo noqnoqonaysa dastuurka dalku wuxuu sheegayaa saddex dhadhaar inuu qaranku ka kooban yahay waa kow waa xeer dejinta oo baarlamaanka laba waa garsoorka oo maxkamadaha saddex waa xukuumadda oo fulinta sharcigu muxuu fulin u yahay xukuumadda waa inay awoodaha qaranku u ogmada ay fulisaa waa in waxay ummaddu ku heshiisay ay fulisaa waa in nabadgeliyada iyo waxa ummadda dhexdooda ay fulisaa waxaanu arkaynaa xisbi ahaan gaabis weyn oo dhanka xukuumadda sidee ku dhacday dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo 30 sano jirsanaya oo nabadgeliye iyo horumar ku taanaya oo xukuumado farabadani ay iska daba dhaxlayeen nidaamkiisa dawladnimo 24 saacadood in deegaanka shalay iyo maanta technical la isku adeegsado oo dhiigga muwaadiniintu dhayr oo ku daato wax aqlan wa sharcan la aqbali karaya ma waa daliil dul hoganaysa xukuumadda kulmiye talada maanta haysa waxa muuqata wasaaradda arrimaha guduhu inay fashilantay wasiirkeeda arrimaha guduhu inuu fashilmay waxa muhiim ah hadduu xishoo waayay oo xilka iyo xasaanadu qaranka u hayo soo celin waayo in isaga xilka laga qaado wax la aqbali karaya maaha dhiig muwaadin oo dhayal ku daadan laba xukuumadda kulmiye waxaad ogtihiin muddada imika labada sano sanka la galaysa ay xilka hayso waqtiga wuxuu kaga dhacay siyaasadeedii arrimaha dibadda waa sawir iyo sawax tii arrimaha guduhuna waa caburun iyo colaado sokay labada sanaba labada arrimood bay dalka dhaxalsiisay marka laga yimaado qabyaaladii la koobsatay sixir bararka ee xadaan maamul xumad waxa ugu weyn laga dhaxlaya maanta oo labada waxaanu mar labaad baa u direynaa ummadda Soomaaliland inta aqliga iyo cilmiga u saaxiibka inaanay eegan karaynin dhiigga dhayalka ku qubanaya ee dadka muwaadiniinta Soomaaliland ee muslimiinta in gurmad weyn oo qaran laga hawlgalo xukuumadana aan lagu halaynin dayarsiga muuqda waa la arkay 24 saacadood muwaadiniin technical isku isticmaalaysa oo hooyada iyo aabaha iyo odayga culus
bartaa la isku uurdooxayo oo inan iyo abtigi huba isku haystaan wax la aqbali karayba dada kale ee daliilka u ah inaana dawladani danaynayn in deegaanka nabadgelyo ay ka dhacdo waxaa ka mid ah bara saabkii gobolka Sanaag inuu Hargeysa iska dhex joogo iyadoo dhiiggaasi ilaa shalay ilaa maanta uu daadinayo technical isku isticmaalay waa daliilada dadka tusaya inaana dawladdu danaynayn deegaanka Cilafoon iyo nabadgelyadiisa